kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warbaahinta wararka maanta kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah teendhada afisyooni ee xantaabka xalane waxaa shir haatan uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka oo qayb ay ka yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray. barnaamijkeena ayaad ku dhageysan doontaan. waxaa sidoo kale maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay xukunno ku riday eedeysanayaal gaaraya ilaa 3 ruux waan soo qaadan doonaa. Soomaaliya iyo Urdun waxa ay ka wada hadleen arrimo muhiim u ah ayana waad maqli doontaan. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa lagu qanciyay ka qaybgalka xiritaanka shirka oo sabtidii la soo dhaafay ka furmay xerada Xalane. waxaad sidoo kale maqli doontaan dhageystayaal waxaa xabsiga laga sii daayay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii Mali oo muddo xabsi ku jiray. dowladda dalka Masarna waxa ay shixnad gargaar ay gaarsiisay dalkaasi Djibouti. qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan warbaahinta wararka maanta. maalinimo Khamiis 27ka bisha May sanada 2021 gordho waxaad maqli doontaan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka sii faahfaahsan. daawade haddii muuqaalkan ugu soo gaaro fadlan subscribe noysar si saaxiibadaada ay kula daawadaan warka maanta ugu waaweyn magaalada Muqdisho iyo caalamka oo dhan. aynu ku bilownay xarunta ciidamada cirka ee afisyooni ayaa waxa uu ka socdaa xafladda gunaanadka shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka, taasi oo lagu wado inuu ka soo baxo warmurtiyeed ku saabsan heshiis ay si wada jir ah ay ku saxiixeen madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. ha yeeshee xafladan oo sida qorshuhu ahaa in 9 subaxnimo ay bilaabato, khudbadaha ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi uu diiday inuu ka qayb galo. qodobka ugu adag ee heshiiskan ayaa lagu sheegay inuu ahaa kan guddiga doorashada ee gobolada Somaliland, maadaama aysan markii hore jirin cid ku matalaysay wada hadallada. ha yeeshee warar ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in ra'iisul wasaare Roble uu ballan qaaday in uu dib u eegis ku sameyn doono arrintan. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, gudoomiyaha golaha shacabka, dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu wadaa inay ku qanciyaan shirka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi. madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa iyaguna ku jira liiska hadal jeedinta shirka haatan ka socda xarunta afisyooni ee xandaabka xerada Xalane. geeska kale haddii aynu eegnana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto 3 eedeysane oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaas oo loo kala haysto dil dadka shacabka ah, isticmaalka maandooriye, amar diido, ka tagida goob shaqo, rasaas lagu furay gaari dad shacab ah ay leeyihiin, iyo sidoo kale goobaha suuqyada. dhageysiga maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Gedo, maamulka degmada Doolo, saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan, ehelada marxuumka, bulshada reer Luuq. gabagabadii dhageysiga maxkamadda ayaa mid ka mid ah 3 eedeysane loo haystay in uu dil geystay ayaa dib loo dhigay go'aanka maxkamadda, halka 2 askari oo kale loo haystay isticmaalka maandooriyaha, amar diido iyo ridida rasaas bulshada dhexdeeda ah lagu kala xukumay min 6 bilood ilaa 3 bilood oo xabsi ah. geeska kale haddii aynu eegnana waxaa goordhow xerada teendhada afisyooni ee magaalada Muqdisho ka bilaabatay munaasabada lagu soo xirayo shirkii madasha wada tashiga laguna saxiixayo heshiiska doorashada oo ay wada gaareen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxda 5 dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ah mas'uuliyiinta heshiiska doorashada gaaray, madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo,
gudoomiyaasha labada aqal qaar kamid ah xubnaha midowga musharaxiinta wakiilo ka kala socda ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka. goordhow waxaa bilaaban doona khudbada madaxda ka qaybgalaysa munaasabada iyadoo uu furi doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble. siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee taabacsan gudoomiyaha aqalka sare geesa kale haddii aynu eegnana Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa ka hor yimid heshiiska doorashada ee la filayo in maanta lagu saxiixo xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho. qoraal ay soo saareen siyaasiyiinta ayay ku sheegeen in aan wax talo ah ay ku lahayn 3 qodob oo kamid ah heshiiska Afisyooni lagu saxiixayo maanta. waxaan u cadaynaynaa saamileyda siyaasadda shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in wax talo ah aanan ku lahayn wax xoogana oo sax ah aanan ka helin sida loo dhigay arinta Somaliland oo kamid ahayd 3 qodob oo xalkoodu loo qabtay shirka ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland gaar ahaan garabka uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi. siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee taabacsan garabka uu hogaamiyo Cabdi Xaashi ayaa ku hanjabay inay qaadan doonaan go'aan masiiri ah. weli dhegeystayaal waxaad maqleysaan wararka warbaahinta maanta. dhinaca kale haddii aynu eegnana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybteeda 27aad ayaa xukunno kala duwan ku riday 3 eedeysano oo lagu helay dambiyo ay galeen. maxkamadda ayaa xukuntay dable boolis Axmed Xuseen Cumar iyo dable xooga Cabdulqaadir Faarax Dhaqane dil toogasho halka eedeysanaha saddexaad lagu xukumay in uu bixiyo 100 halaad oo ah magta Saddam Diiriye Ibrahim isla markaana dilkaasi uu ahaa mid si kedis ah oo ku dhacay. dable boolis Axmed Xuseen Cumar ayaa lagu helay dilka Farxaan Xasan Mahad oo shacab ahaa halka dable xoog Cabdulqaadir Faarax Dhaqane lagu helay dilka Mawlid Baashe Cumar iyo mid kamid ah eedeysanayaasha oo loo haysto dilka Saddam Diiriye Ibrahim. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybteeda 27aad Maxamed Amiin Cabdulle Aadan ayaa sheegay in xukun sanayaasha ay muddo 30 cisho gudahooda ay fursad u haystaan inay raacfaan qaataan. geesta kale haddii aynu eegnana safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka Cali Shariif ayaa la kulmay safiirka dalka Urdun Dina Kawar iyaga oo labada mas'uul ka wada hadlay arrimo dhowr ah. kulankan ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee haatan ka jirta dalka Soomaaliya iyo baahida loo qabo in la xoojiyo iskaashiga dhinacyadaasi. intii uu socday kulankaasi waxaa kaloo labada safiir ay ka wada hadleen dib u eegista xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah iyo arrimaha danaha guud ee heer gobol iyo heer caalami. dowladda Urdun oo kamid ah dowladaha Carbeed ayaa kamid ahayd dowladaha taageerada siiya Soomaaliya balse xiriir buuxa aan lahayn. ugu dambeyntiina haddii aynu kusoo gabagabeeno madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii dalka Mali ayaa xabsiga laga sii daayay. ilaa military oo ka tirsan ciidamada dalkaasi ayaa sheegay inay xabsiga ka sii daayeen madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa ee dalka Mali Bahnindow iyo ra-iisul wasaarihii Mukhtar. labadaasi mas'uul ayaa la xiray maalintii Isniinta ee isbuucan saacado kadib markii ay magacaabeen gole cusub oo aysan ka muuqanin labada sargaal ee ugu muhiimsanaa hogaamiyaashii militariga ee afgembiga ku qabsaday taalada dalkaasi bishii Agoosto ee sanadkii hore ee 2020. wararku waxay sheegayaan in madaxweynihii ku-meel gaarka ah ee dalka Mali uu iska dhex asilay xabsiga halka uu xilkiina ka qaaday ra-iisul wasaare Mukhtar oo isagana warqadii iscasilaada saxiixay. gaashaanle Baba Isa oo ah la taliyaha qaaska ah ee Colonel Goita ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay iscasileen iyada oo ay marqaatiyaal ay joogeen. waxa uu intaasi ku diray in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dib u heli doonaan
xorriyadooda isaga oo dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay xalay kulan qaas ay ka yeesheen xaaladda dalka Mali waxa ayna ay ku baaqeen in shuruud la'aan lagu sii daayo dhammaan saraakiisha dowladda ee xiran. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen wararka warbaahinta maanta waa naga intaas tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo.